dhacdooyinka horta magaalada Muqdisho ka dhacaya aad ay u tirada badan yihiin saaxiib mootoley dib weyn lagu hayaa waliba waan la soo koobi karin waa la isku dayay aniga laftirkayga mootadayda in yani la dhaco waliba iyadoo la iska dhigayo qof rakaaba oo maaragta ama dad rakaaba u baahan meel in la geeyo oo kadibna isku dayay iyaga inay isku dayeen inay maaragta ila dhameeyaan mootada taydi waxa kamid ah macnaha waxyaalaha ay dadku ku sameeyaan iyagii iskula hadli maayaan Soomaali caadiya waxay isku qorayaan mataqaana message laakiin mootoley dadka aqligooda shaqeynaayo waxay ka fiirinayaan haadadka gudaha waa dareemay rag isla socdo message isku gudbiyahay macnaha oo telefoon kale haysto ani markuu waajaqay xilli 4 saac bar amalayna iyadoo hooyada baa xaafadeeda u socday waxaan ku yiri mar laamigaan saaranahay inuu iga daga lambar ay soo wacay ani systemkaas oo gudbay laakiin budgetkeeda macsanaan ragaas oo dambeyn saas ay la noqon mid kale waxa dhacday yaran saaxiibanahay xaafadan riwaaya al-Cadaalo qaastan asigoo gurigiisii u socdo yar kale oo saaxiibkiisa la socdo mootadiisa waa ragba laba waay mid uu istaagsanayo nin caadi ah sacboolay waay midna waxa waay uu jiifa qorigiina halkaas ugu jira dharna ma wato oo ciidan ah dress ma wato marka wuxuu yiri niyow meesh suuqa riwaaya na geynay $1 barna sii yiri waa ku siinaa yiri warka ma gelin asu ninkan waxay rnisugu yiri gabar inta noo soo baxayso kii kale gadaal saarnaa walaalkiisa ayaa shakiyay markaas yiri niyow raggan waa ka shakiyay naga wada waa ka shakiyay ninkan markuu maqlaay isla markii qorigii uu la soo baxay ninkan jilbaha saas ugu heystaan oo u jiif asu labadooda xabadu ku ridiyay kii darawalka saaxiibkeena gacanta ka dhaawacay yarka kalena uu baxsaday mootadeen way ka qaateen markan iyo dhibaatooyin badan lagu hayaa mootooyinka oo aan soo koobi karin iyadoo awalba dhalinyaradii shaqaysan haynin oo qaar jaamacado dhameeyay qaar kale isugu jiraan oo yani tahriibkii rafaadkii maanta waa laga nastay markii la yiraahdo in shidaalkii lagu qaaliyay dawladda dhacdeeda waxa waaye askartii dhar darees ciidan iyagoo wataan inay dhibaateeyaan aad ugu xidhan dib badan aan ugu hayo wallahi waxaan soo jeedinaa dhalinyarta awalaanan dhanka dawladda shaqooyin fiican aysan ka haysan in macnaha waxa waaye bajaajkooda kaliya lagu nabadgeliyo awalaysan biil ka rabin wax ka doonooyin dawladdeenu waa jecelnahay kaliya naga dhaafto ciidanka